مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه. نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحوليه قفكي ده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مانن والبقفكي سدا دها بقلبر وحا أسقنادي shan shay oo aad iyo aad u fadli badan, shan arrimood oo aad iyo aad u weyn, shan arrimood oo nafteena ay u baahan tahay. midda koowaad waxa weeyaan kaanad lahu cadla 10 riqaab, qofkaasi waxa u sugnaaday qof xureeyay 10 adoon ajirka oo helaayo oo kale ayaa qofkaasi u sugnaaday. wa kutibat lahu 100 xasana, qofkaasi waxa loo qoraa oo dhikrigaasi maalin walba 100 jeer dhaha 100 xasano. nafteena aad iyo aad ay ugu baahan tahay wanaaga noocan oo kale ah. nafteena oo har iyo habeen ku dhex jirto xumaan iyo taqsiir aad u weyn, aad ay ugu baahan tahay inaan 100kan xasano oo kale aan helno maalin walba. haddaad doonaysid maalin walba inaad heshid 100 xasano, 100 ajir, 100 wanaag, dhikrigaani ha mugaanin. sidoo kale nabi calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay wa muhiyat anhu 100 sayi'a, qofkaasi waxaa laga tirayaa oo laga hoobinayaa oo laga baabi'inayaa 100 xumaan. ما أحسنها وما أجملها. هري هبين أيان قلت كجرنا سيدو إلهي سبحانه وتعالى وكشيغي في حديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أدومنك يو هري هبين أيان دنبابدان أنيق أيان دنبي دافو إي دنبي داف إيو ديست أن إذين دنبي دافو أيو إلهي سبحانه وتعالى إن ليهي هري هبين أيان دنبي كل حجرنا ما بكسي جرتب الزمن كان آنون لهاي والدول بآمري حمان أيا لكل مي ناقابنا يا أركي mid siyaar caba ayaa arkay, mid xumaan sameynaya ayaa arkay, mid hees dhageysa ayaa arkay, mid dad isku dira ayaa arkay. kullu shay zamankan waa mutawaffir عندنا عياذا بالله رب العالمين. qofka dhikrigan aqriyo 100 xumaan ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ka hoobinaya. sidoo kale nabi maxamed alayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan fi dhalika al-yawm hatta yumsi. dhikrigani wuxuu u yahay xir iyo difaac maalinkaasi, wuxuuna difaac ugu yahay shaydaanka ilaa uu ka galabaysto. shaydaanku waa cadowga ugu weyn ay nafteena ay leedahay, waa cadowga ugu weyn oo naga leexiyo wanaag walba, waa cadowga ugu weyn oo nagu rido xumaan walba ciyaadan billahi rabbil caalamiin. hadduu cadowgaasi oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu sheegay haddii lagaa difaacayo wax kaa difaacayna lagu tilmaamay, maxaa ka wanaag badan 100 jeer dheh 10 daqiiqo xataa kaa cuni mayso iyo 5 daqiiqo iyo wax lamid ah xataa ma gaarayso. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بقول جار إنا دهديد 8 اسك داي 5 اسك داي 7 دقيقة حتى كقاعدة ميسو إنتاني إنك بدنا واكو هلاي. سيدك الله عليه الصلاة والسلام حليه هاي قفكي بقول جار ده ذكري جاء ما ننكا قف كفر لي بدن مجرو إلا قف وحو سميه كبدن سميه موي محاك وناك بدن. qof kula mid maalinkaas ma jooga baladka, qof kula mid maalinkaas adduunka kuma noolo ilaa qof waxa sameeyay ka badan sameeyay mooyee. marka waxa la rabaa qofka muuminka ah in uu ku dadaalo dhikrigan si shantan arin oo waaweynka ah, shantan arin oo aadka iyo aadka u fadliga badan, aadka iyo aadka loo helin oo fursad qaali ah inaa ka faa'iideysan ayaa la doonayaa walaalayaal. dhikrigan oo aadka iyo aadka u qiimaha badan, aadka iyo aadka u weyn oo shantan arin waaweynka ah oo hadda aan soo sheegno oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ku sheegay, waxaa la doonayaa qofka maalin walba inuu carabkiisa ka marnaanin si shantan arin hadduu doonayo oo u baahan yahay oo u helo.